qoraa Farxaan Maxamed Xasan Rakad ayaa buuggiisa Hilinka Guusha ku soo bandhigay magaalada Berbera. Munaasabadda lagu soo bandhigay buuggaasi Hilinka Guusha ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro, siyaasiyiin, ganacsato, waxgarad, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland. Ugu horreyn Farxaan Maxamed Xasan Rakad ayaa waxa uu sharaxay buuggiisan Hilinka Guusha iyo muddadii dheereed ee ku qaatay inuu diyaariyo buuggaasi. runtii waa buuggii ugu horreeyay aan qoro waana buug ani badan waday waxaan waday 2 sano u dambeeyey sababahan waa qorana waxa weeyaan dhalinyaradan qiimaha badan leh ee Somaliland iyo hadday Soomaali noqoto cid kastaba inuu anfaco inay ka dhexeeyaan guusha ay raadinayaan kula adduunyada guul baa la raadiyaa hadday mid aakhira tahay iyo hadday mid adduunyo tahay iyadoo ay jiraan buugaag badan oo la qoro ku saabsan guusha in badan aan jeclaystana wixii aan maankayga ka soo saaray aan buuga ugu soo bandhigo runtii farxad bay tahay inaan buuggayga caawo mar labaad lagu daafuray magaalada Berbera sababihii aan buuggan u qoray waxa weeyaan dhiirigelin aan dhalinyarada la jeclaaday meel kasta ay joogaan runtii hore waxaan u qori jiray iskamaan qorin maqaalo badan baan qoray 308 wax ka badan baan qoray xagga tiraacayga markaan eego markii intaa qoray waan jeclaystay inaan qoro buug wixii maankayga ka guuxaya dhalinyarada waxay u baahan yihiin dhiirigelin bay u baahan yihiin dowladdu waxay u baahan tahay tilmaam bay u baahan tahay waxaan wada baahanahay wada guul baan u baahanahay si markaa in wada guulaysano fi aakhiraba oo mar walba xoogga saaraya in aakhira la guulaysto ayaan buuggan u qoray runtii sababaha u qoray waxa weeyaan adigu guulaysatid anigu guulaysto dowladdu guulaysato waa sababihii ugu waaweynaa aan u qoray buuggan dhalinyaradii iyo weliba siyaasiyiin ganacsato kala duwan oo iyaguna munaasabadaasi hadalla ka soo jeediyay intii ay socotay dhammaantoodba waxay u hambalyeeyeen qoraaga buuggani Hilinka Guusha qoray. innagana waxaan matiilayna ogay qoraagana dhiirigelin oo inaynu buugaag qaadano tacab baa ku baxay waqti baa ku baxay tamar baa ku baxday soo jeed badan baa ku baxay waxaa laga yaabaa buuggaa dad qaadatay imika inaad haddii aad waqtigaaga uga qaaday biyo inaad usbuuc ku akhrido laakiin qoraaga waxaa laga yaabaa inuu waqti badan ku qaatay sidoo agaasimihii ugu horreeyey sheegay ee shirkadii jeebka waaweynaaye way joogaan halkan taleemaan iyo cawin iyo markaa anugu waxaan halkan kaga dhawaaqayaa shirkadda Unigas ee magaalada Berbera wakiilka ka ahay 20 buug baan u iibinay horta runtii waxaa aniga aad iyo aad ii cajabiyey magaca loo bixiyey buugga إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن سحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إلهي وحط الماء يقوشة نوع عيتهاي هي بني آدمكو وضد أيكو قولي سنيا فمن سحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز حفري يقوشة برادين أوترس لكن النار لقبت باديو شناء لقينيو كاسوا قوليس الدنيا لقوشة دي ويسكك وانتهي run ahaantii aniga farxad weyn bay ii tahay inaan arko dhalinyaro intaa la eg oo ku fakeraysa inay guusha adduunyo iyo ta aakhiro soo bandhigaan si ay u gaadhaan himiladooda meel fog farxad weyniya inaan ka soo qayb galo anigoo ka wadalaa shirkadda Tilison qaybteeda Berbera bandhigga buugga Hilinka Guusha ee uu qoray saaxiibkay Farxaan Rakad runtii waan ku hambalyeynaya waa guul marba uu qof gaadho waxaan leeyahay dee waa bilowbaad iminka maraysaa waxaan leeyahay insha allah qaar dambe waad qori doontaa si aad kaa hore u qortay khayrka insha allah u rajeynaya runtii dee qoraagana waxa uu ila dheeraaday waxa weeyaan kiisi uu habeeyo oo xigmadeeyo iyadoo oo bani aadam ka faa'iidaysan karaa oo ka xigmad badan ayuu nadaayay runtii waan soo dhaweynaa qoraaga buuggiisana waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay runtii aan dhalinyaro ah oo sidaa dhiiranaanta intaa leeg iyo dadaalka intaa leeg la yimid loo sugayay buu ka mid yahay aad iyo aad baan runtii ugu wada hadnaqaynaa dhammaanteen caawa waxaan u baahannaha inta qofka halkan fadhidaaba buugta imisa inoo yaalla tirada buugta inoo taalla waa imisa 100 ma inteennan baaba 200 dhow waaye waxaan u baahannahay qof kasta halkan ka baxaya gacantiisa waa la sii eegaya buugga qiimo jabanna wuu yahay runtii inuu qof walba buugga kusii laabo waayo inaan isku hadlaynayn shirkaduhu ku inoo iibinayaani kuwaas horta waa la haynayaa
laakiin nimanka halkan soo fadhiya dalaalaya iyo hablaha inoo fadhiyaba runtii iyagu ayna ku dhacaan waxaan ilaawo dhab ahaan qiimo weyn buu ku leeyahay gobol ahaan waxay noo farxada inkastoo doonayna inuu bal markiisii koowaad uu kusoo bandhigo magaalada berbera haddana uu ka cudur daartay oo wuxuu dee mudantaydii baa joogtay magaalada hargeysa oo hooyadii aabiyo baa deganaa aad baan ugu mahadnaqaynaa inuu markii labaad meeshii iyo goobtii uu ku qoray uu kusoo bandhigo kolley jimcaal isagu uu bariyay intuu qaadanaye haddoo la idhahdo haamaha waxaan u qaadayaa nagala tegayni way ka duwan tahay awalan waxaan marka hore hambalyeynayaa oon aada iyo aada ugu mahadnaqaya qoraanka buugga oo runtii nin dhallinyara oo reer berbera waana qofku markuu qoran yahay waa asad qaran weeye waa hanti qaran weeyaan siiba marka uu qofku ku qorayo luqadiisii hooyo oo ah luqadda soomaaliga oo runtii ciwaanka buugga markaad u fiirsato hilinka guusha marka la yidhaahdo qof kasta oo bini aadmiya oo adduunka ku nool oo inuu guuldarraysta jeceli ama diyaar u ah inuu guuldarraysta ma jiro kol haddaan diyaar loo ahayn in la guuldarraysto dee waddadii loo mari lahaa in laysu tilmaamo qofka tilmaamay in lagu hambaliyey oo aada loogu bogaadiye aada iyo aad buu mudan yahay inbaa imika kula yar adiga oo sidaad ummadda maxaad u sheega waxaan ma taqaanin bay adiga horta maasir hadaysa laakiin in bay agtooda ku weyntahay intaasoo haysan soomaalida in dowlad ahaan somaliland kan weliba halkan ummadda ka degannahay in yar baa wax dhigata oo aad karti u yeelatay ama hayn u yeelatay in jaamacada ka baxdaa koo barata ama siga diray gasho haddaad tuuladaa kugu dhow tugto wax laga yaabaa tixiyaadka lama soco cilmigan iminka adigu aad moodaysa inuu kugu yaryahay sidaad ummadda maxaa u sheegi haddaad dhaqaaqdo waxaad ogaanaya inaad caalim weyn tahay ee waajibhay dadka inaad gaarsiiso aanad la seexan mas-uuliyadda ummadeed ee qofku han ummadeed qaado ee wasaaradka wax gaarsii ummadda wax ku dar saacada firaaqada tahay ummadda la joog oo dadka waxta oo inta yaray kugu jirta intay ka maqan tahay gaarsii waa wax runtii maxamed xasan rakad ayaa markii koowaad wuxuu buuggiisan hilliga guusha kusoo bandhigay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan isagoo markii labaadna kusoo bandhigay magaalada berbera waxaana la filayaa inuu marka saddexaad kusoo bandhigi doono magaalada burco isagoo guud ahaana ballan qaaday inuu gobolada waaweyn ee somalilan dhammaantoodba kusoo bandhigi doono